subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. xilliyada ka mid ah waxaa jiri jiray nin lagu magacaabo jiray Kaaliya ay xaaskiisa gurigoodii way iibiyeen waxayna ka guureen tuuladoodii waxayna u soo guureen tuulo cusub. Kaaliya waa nin bakayl ah oo doonaya guri cusub balse aan rabin inuu lacag badan ka bixiyo guriga. Wuxuuna u tagay nin dalaal ah milkiilaha waxa raba guri cusub laakiin ma rabo inaan lacag badan ku bixiyo. Ha ii meeleynin doqon wax walba waan ogahay ee lacagta iga yaree. Kaaliya wuxuu iska dhigay nin aad u caqli badan mana doonin inuu lacag badan bixiyo. Milkiilihii ayaa is yiri ninkan wuu siran yahay maanta banaanka soo guriga qabuuraha u dhawaa ee ruuxaantu deganayd. Markaas ayuu yiraahday walaal waxaan hayaa guri kugu habboon oo jaban haddii aad rabto maanta ayaan kaa iibinayaa. Kaaliya ayaa yiraahday haye tus hadda. Laakiin milkiilihii wuxuu ka baqay in haddii uu hadda u tuso guriga Kaaliya ogaan doono inuu u dhow yahay qabuuraha. Sidaa darteed wuxuu ku yiraahday walaal shaqo degdeg ah baan hayaa hadda laakiin habeenkii ayaan ku tusayaa guriga. Markii habeenkii la gaaray ayuu guriga tusay. Kaaliya aad buu u jeclaaday maadaama uu aad u jaban yahay gurigu. Markaas ayuu si farxad leh ku iibsaday gurigii. Laakiin markuu gudaha u galay guriga wuxuu dareemay cabsi. Iskay ka waran maanta soo kama farxeen guri qurux badan inuu ku caajibiyay. Farxadna ku dareentay si wali waa ka xuntahay oo waxaa rabtaa guri kale oo cusub. Xaaskiisuna waxay tiraahday guriga wuxuu leeyahay mid cabsi ah oo ay ruuxani degan tahay. Waa dhaqan xun tahay sidoo kalena waa abaal xun tahay xaaskaygii. Markaan guri fiican ku dejiyay oo ku kala kiciyay waxay leedahay guri xun baa idijisay naheed caqli meel hidmiya. Markaas ay labadooda seexdeen balse saqdi dhexe habeenkii markii la gaaray qabuuraha ka soo baxay nin ruuxaan ah. Kadibna codada cabsi leh ayaa bilowmaday. Raana ayaana toostay. Kaaliya istaag oo hurdada ka toos. Dadkan cabsida leh ee ka soo baxay dhanka qabuuraha. Ma balaayo kugu dhacday maxaad nooga nixsan kaar kugu dhacday waa ogtahay inaan hurdnay ma ay no toosis. War fulayo istaag balaayo ku qaadee ma hadda kala baa la hurdaa. War nin ruuxaana meelaha samari istaagisan guriga nagu jibinayso nacunayn istaagay dhinkaar kugu dhacday. Ninkii ruuxaanta ahaa ayaana wuxuu bilaabay inuu sameeyo codad aad u dheer oo argagax wata. Ninkii ruuxaanta ahaa ayaana wuxuu soo dhaqaaqay dhankii guriga Kaaliya uu ku yaalay. Gacalisi aniga kula jooga habaqin nin karmeed ayaa kula jooga lagama yaabo inuu ninka ruuxaanta ee foosh xun u cuno. Haddana cabsida iska dhaaf oo seexo. Kaaliya xaaskiisuna mar kale ayay seexdeen laakiin ninkii ruuxaanta ahaa ayaa wuxuu bilaabay inuu si xoog leh u garaaco daaqada gurigooda. Yaa way qofkan sida xoog leh u garaacay daaqada amuu yahay ninkii ruuxaanta ahaa. Gacaliya kac oo fiiri banaanka qof baa ka muuqda daaqada agteeda oo garaacaya daaqada ee istaag fiirina qofka uu yahay. Kaaliya ayaana kacay si uu u hubiyo qofka taagan daaqada. Kaaliya ayaana baqay markuu arkay ninka ruuxaanta ahaa oo taagan daaqada una soo socda dhankiisa. Kaaliya ayaana daaqada xiray isagoo aad u argagaxsan balse xaaskiisa aan u muujinayn inuu cabsan yahay ama argagaxsan yahay una ka baqay ninka ruuxaanta ahaa. Xaaskay horta fulaysanayda ma waxa kala noo kiciya meel cidlo banaan baa anaga danoshiisa ordeena noo qasaysa. Mar dambe hadda waxa noo keentay iska jir. Waradiga horta baxaan balaa iskaga dhigda balaa yahay urka badan. Anagu waxa ku niraanay nin ruuxaana meelaha taagan fiiri bal ka waran ninka ruuxaanta haduu dhab ahaan law aniga cuni lahaa adigana ku cuni lahaa maxaa xal ah. Gacalis raali noqo balse sidaas oo kala la isku kiciyo ayar waa ii kicin kadib. Mid kale hadda ina keenan seexanay seexa adigu anigu seexan maayo waxaan iska ilaalinayaa ninka ruuxaanta ahaa daaqad soo gargaraacay. Kaaliya ayaana wuxuu go'aansanayay inuu xaaskiisa la soo jeedo. Kadibna labadoodu waxay fariisanayaan meel kafka daaqada laakiin mar kale ayaa qof wuxuu bilaabaya inuu garaaco daaqada. Labadooduna way baqeen. Habeenkiina sidaas ayuu ku soo dhamaaday isagoo cabsi ku dhamaaday. Subaxdii markii la gaaray waxay u baxeen raadinta milkiilihii guriga balse ma aysan helin. Habeenkii markay guriga ku soo laabteen oo ay seexdeen ninka ruuxaanta ahaa ayaa markaa ka soo baxay qabuuraha wuxuuna yimid daaqada gurigooda wuxuuna bilaabay inuu si xoog leh u garaaco daaqadooda. Kaaliya kac ninka ruuxaanta ahaa ayaa daaqadeena garaacaya wuxuuna rabaa inuu nocono ee istaagna badbaadi labadeenaba. Ma balqeelada daa inuu asigu yahay in kale aan soo fiirshay gaar kugu dhacday nagu diran aamo. Kadibna Kaaliya ayaa wuxuu soo aaday dhanka daaqada si uu u fiirshay qofka daaqada garaacaya inuu yahay ninka ruuxaanta ahaa iyo qof kale inuu yahay. Kaaliya ayaana wuxuu soo qaatay ul wuxuuna u dhaqaaqay dhanka daaqada